السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل هانتي ملك صدق داونا سان halkani waa hamid dawdo anigu waxaan Cabdiraxmaan hadii aad nala joogtay waad mahadsan tahay barnaamijka noo share garay saaxiibada iyo Soomaaliba la wadaag hadii aad nagu cusub tahayna na soo raaco channelka subscribe noo saar wadada 100 kun baan saaranahay nagu soo beer hadii aad barta Facebook naga daawanaysana follow na soo dheh qaybtani waa qaybtii 17aad oo kamid ah casharradeen imtixaanaha ee xeer ciise iyo dhaqankeena soo jireenka ee 6 qarni jiray buuga qaybtiisii labaad ayaynu iminka u gudbaynaa qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa oo buugu uu kaga hadlaya ama xeerku qaybtan aynu ka qaadanayna waa mag iyo maydaan wax la yiraahdo maydaan inaad gareenin baa laga yaabaa laakiin macnihiisa meeshan baynu ugu tagi doonaa magta haddaba mag kolka la leeyahay ruux haddii la dilo ruux laguma mago laakiin xoolaa lagu magi arrintani waa meelaha laga yaabo dadka dhinaca shareecada u gabaday ee dhaqankan yiraahdo shareecada ma waafaqsano inay u gabadaan laga yaabo mar haddii aynan xilligii duruuftii lagu sameeyay xeerkan hore baan u sharaxnay xilli kala guur ah oo gumaysigii lala dagaalamay oo dhul dadkaasi ay iska yihiin dad iska xoolo dhaqato ah oo la qabsaday oo gumaysigii reer Yurub iyo dagaaladii Boortaqiiska kadib iyo Axmed Gurey dilkiisii iyo in badan kadib markii ay hadana gaaluhu qabsadeen Soomaalida qaybtaas oo dhan dhinaca waqooyiga ila galbeedka deegaanka Soomaalida ee gaalihiina laga kiciyay ka bacdi dawladuna ma jirto dawlad kale oo lagu tiirsadana ma jirto dadkuna diin iyo dunawi way yaqaanaan markaas waxaa la go'aansaday wixii lagu dhaqmi lahaa in la samaysto si dariskana looga nabadgalo loona nabadgaliyo dadka dhexdiisuna u kala nabadgalaan dhaqanka iyo dadka iyo diintuba ay u nabadgalaan in dadkan la kala nabadgaliyo oo nidaam loo sameeyo kala haga oo iyaga dhexdooda sida isugu soo noqonin baa loo sameeyay saadaradeed marka kama suuragelaysa dhinaca shareecada amiirkii iyo qisaastii iyo dawladii islaamka iyo ma jirin haddana ma jirto xilligan joognana ma jirto marka duruuftaas lagu sameeyay darteed meelaha ay culimadu hadda markay aad u fiiriyeen afwan ay yiraahdeen duruufaha ayay kamid tahay ayay meeshana kamid tahay marka magtu waa saas oo qofku markii uu qof hadii la dilo kii dhagaroobay xoolaa laga qaadaya haddaba marka wax fudud ma aha oo sida hadda Soomaalida dhexdeeda aan loo maarihelaynin ma aha nidaam iyo xeerkan markii uu jiro xataa dadku way kala nabadgelayaan oo magta lafteedu wax fudud iyo wax si fudud ku yimaada iyo qaab fudud ku yimaada ma aha waa qaab qofka dhagarooba bini aadamkaba u ka dhaxbaxayo oo sameeynaya wax cajiibaad wato dhaqankiisa iyo diintiisa ka soo horjeedo sida Ilaahayba u fogeeyay ayuu qofkaas u ogaanayaa inuu dhagar xun galay sida daraadeed baanan hadda deegaamada xeerkan midada dhan ka jiray haday xataa gacan dhacdo aynan wax sii socdo oo farabato oo maanta dhaco bari dhaca aynan u noqon loo xadiday awr hadii la dilo awr kale laguma mago sababtuna maxaa weeyaan riti maciina oo ka dhamaatay baa laga yaabaa in lagu magdhabo ama riti aan hayina intii laga dilo in riti layli ah lagu siiyo ama qaalan maartay rarayb ah lagu siiyo sida daraadda 12 laxaad baa laga qaadaya ninka riti gacantiisa ay ku baxda maxabad wiiftaa kaga dhacdo ama guduna ku dhufto ama sunha siiyo ama intuu rarto oo galgalin uu urtigu seexda ku baqtiyo waxa dooniba ha dhacdo hadii ritigaasi gacantaada ku baxo 12 laxaad baa laga qaadaya waa hagaag marka dad iyo dunyaba mag baa laga bixiyaa laakiin magta way kala bedelan tahay qaabkaas loogu talagalay dadku inay ku kala dhaqmaan ku kala badbaadaan sac hadii la dilo 6 laxaad baa laga bixin ee saci waxa laga yaabaa mid magaana in lagu siiyo taa darteed baa marka in hanti kale laga qaado la rabaa xeerku laakiin wuxuu ogol yahay dameer hadii la dilo in dameer lagu magdhabo sababta maxaa weeye waa la dhaansanayaa ritigaba waa la dhaansanayaa Soomaa dameerku iyo ritigu isku mid ma aha ritiga de marka riti hayin hadii laga dilo inaan hayin lagu helin baa laga yaabaa riti firkiisu fiicnaa hadii laga dilo inaan lagu helin baa laga yaabaa laakiin dameer waa un dameerkaasna de waa un la raran rag saas darteed baa marka waxa loo yiraahday dameer reerka wuxuu dhaansaday reerka u keen intaasi waa qayb maydaan maxaa la yiraahdaa marka maydaan muxuu yahay maydaan waxa laga wadaa
shaygiisa kale lagu celiyo sida qorigaagii baa ninkaa jabiyey waa inuu qori ah ka 47 ah ku siiyo raashiyaana ama liibiyaana ama masari ah waa inuu ku siiyo laga qaado waran bukaaji waa in warankii lagu siiyo baaquli bukaaji waa in baaquligii lagu siiyo dhiil bukaaji waa in dhiilkii lagu siiyo marka sidaa daraadeed ayaa marka waxaa la yiraahday maydaanku waa shaygiisii kale lagu guday oo lagu celiyey waa hagaag weysada argeegta ah mag waa weysada ugu qaalisan oo waxaa laga tolaa geedka argeegta ah xididkiisa waayo xididkaas sida lagu helo ayaa adag xididkaas maartay soo helidiisa ayaa maartay aad u adag in la soo helo marka weysada sida daraadeed weysada geedaha laga qoro ee qoriga ah iyadana waa maydaan mag ma aha weyso u soo qor ayaa ninka lagu oranayaa haddii lacalaba ninku geed weyse kaa jabiyo weysadii u soo qor baa la dhihi laakiin weysada argeegta ka samaysan waa mag sababtoo waan la helaynin laguma helayo fidhinka oo kale ee lagu fidho haddii fidhin lagaa jabiyo oo shalladan geedka laga qoray lagaa jabiyo iyadii oo kale uma mataqaanaa lagu keeni oo geed baa lagaaga soo qori haddaad ka hadhi weydo wey laakiin haddii fidhinkaas sac geeskii laga sameeyey ama gees laga sameeyey gees bicid ha noqdo gees haddii laga sameeyey waa la magayaa mag baa laga bixinayaa maxaa yeelay sababtoo adee iyada lama helayo way adag tahay fidhinkaas waa mag oo magtaasna laxbaa laga bixinayaa marka sidaa darteed baa xeerku wax kasta oo dadkaa ka dhexdhici kara fidhinka golxobta waranka usha hubka ah sida budka oo kale qaansadii iyo maartay fallaadheedii iyo leebkii wixii alaabtay wadatay waxaasoo dhan wixii adigu aad ka hadhi weydo eed ku dhegto bedelkiisa ayaa lagu siinayaa intani marka waa mag iyo maydaan sharaxaadeedii dhagalayda soo socotaynu ku qaadan doonaa magta boqolka ah qaabka loo bixiyo ee axan iyo ood la yidhaahdo qaabka loo bixiyo xoolaha la bixiyo waxaa dadka lagu ciqaabo ruux